السلام عليكم غير تعرف لسودو هذا وبرسنتي قيبتي سلبات waxaan soo weydiinay waxa percent-gu yahay waxaan go'aan ku gaarnay percent-gu inuu yahay fraction lagu saleeyay 100 marka waxaan niri for example 2% oo kale waxaan niri 2% waa laba loo qaybiyo 100 marka intii lama qori karo 100 kaasaas lama qori karo waxa la yiraahdaa soo gaabsano 2% aan qorin laba loo qaybiyo 100 saasaan qoraynaa fraction ku saleysan 100 hoosta 100 iska haato laakiin 100 ka 100 qori karno calaamadaas ku bedelaynaa sideeba marka fraction kasta percent looga dhigaa waaye haddaan ku siiyo half aan ku raa percent ka dhig maxaad samaynaysaa haddaan ku siiyo half aan ku raa percent ka dhig maxaad samayn halkaan la nimaado haddaan ku siiyo half aan ku raa half ka percent ka dhig maxaad dhihi oo mid waa taqaanaa ku soo bar maxaad dhahaysaa hoos boqol iga dhig see uga dhiganaysaa konton ku dhufo korna haddaad konton ku dhufto hoos korna konton kor maxay noqotay konton loo qaybiyey boqol marka maxay noqotay 50% boqolkiiba konton sorry boqolkiiba konton soo waxay noqotay 50% soo ma 50% halkaa waa kaga dharagteen laakiin sidan way dhib badan tahay marar badan tirooyinka hoose boqol laga dhiga hadii la yiraahdo maxaa boqol ka dhigi kara raadinaynaa maanta dhan hoos haddaan 20 kugu qoro 200 haddaan kugu qoro 15 haddaan kugu qoro 17 17 haddaan kugu qoro dhibkeeday leedahay marka hab guud baan la imaanayna habka guud waa kan iga dhageysta casharkan nuxurka casharkan waa intaas habkan arrintan la sheegayo si looga dhigo shay fraction looga dhigo percent waxaad ku dhufanaysaa boqol ku celiya warka si fraction looga dhigo percent waxaad ku dhufanaysaa boqol kii hadda ka bilowno waxaan nidhi half waa halfkii boqol noogu dhufo percentka calaamadaan raacsiisanayna so half by 2 waa hal by 2 na waa konton boqol laba loo qaybiyo waxay noqonaysaa konton so waxay noqotay percentigiina way wadataa calaamadii 50% sida aragtaan waxay la mid tahay tii hore ayay la mid tahay number 2 aan mid kale ku siiyo haddaan ku iraahdo 3/4 habka ugu dhaqsaha badan leh adoo ka dhigi kartid percent muxuu yahay inaad ku dhufatid boqol miyaan ahayn boqol haddaynu ku dhufanno percentigan raacsiino calaamada kan waxaan u qaybinaynaa 4 hoosta inta ka dhigatid oo quruxsatid fractionka waa inaad naqtaqaanaa si la isugu jarjaray qofkii xoogaa meeshaan ka qasantahay please gadaal ugu noqo fractionkii fadlan fractionkii isku dhufashadiisii isku qaybintiisii gadaal ugu noqo teeda kala cajalooyinka waa inaad barataan inaad la degtaan habka kula degi kartaana waxaa weeyaan si isugu kacigaan casharada isaga ka dhexyaacin waa inaad subscribe meesha taabataan lacag ma aha youtube waa iska taqaanaa iska free laakiin waxaa isugu ka xigsamaya waxa la wixii casharaha si isku xiga kaan sameeyaba ku imaanaya markiiba waaya boqolkiiba 4 u qaybi waa 25 halkaan 4 u qaybi waa mid 3.25 ku dhufo waxay noqonaysaa 75% iska taqaanay soo maaha 3 meelood oo meel boqol haday 3 meelood oo meel aad qaadatid meeqa qaadatay 75 bad qaadatay tan $100 isla haysan hadda warkan 3 meelood oo 4 meelood dii loo qaybiyo shaygii 3 ma qaata dad tiraad boqolkiiba maxay qaadatay 3 waaya number 3 midaan sameeyay 2/5 ka war asahlan tahay taas waxaan leedahay boqol ku dhufo gebigooda halkan qurxi by 5 dheh waa 20 dilaatan loo qaybiyo 5 kana 5 qayb waa mid 2 ku dhufo waxay noqonaysaa 40 waa macquul haddaynu $5 haysan lahayn ama $100 haysan lahayn oo laba meelood ka qaatay 5 inta loo qaybiyo meelood laba ka qaatay 40 bay noqon lahayd way hadda tilaaban ku daraynaa marka exercise kana xogaa bobsiinayna then waxaynu fiirinaynaa wixii kale oo waxaynu fiirinaynaa oo horaan u sii wadaynaa qaybta labaad waxaa weeyaan oo xisaabteena maanta ku saabsan tahay waxaa weeyaan sideeba marka waa garanay hadduu fraction ku sidan yahay ka war balkoona ka shaqee horta hal midaan ku daro hal example hadduu fraction ku yahay mixed sida 2 whole number 1/2 maxaad samayn doontaa hadduu fraction ku sidaan oo kale yahay maxaad samaynaysaa waa sahlanta
waxaad samaynaysaa intaad wax kala samayn fractionka waxa u rogaysaa mixing waxaa ka dhigaysaa 2 times 2 waxaa u bedelaysaa baan leeyahay improper 2 times 2 4 plus 1 5 kor dusha sare 5 bay noqotay hoosna maxay noqotay 2 hadda boqolkaaga ku dhufo boqolkii markaa ku dhufatid waxay noqonaysaa oo percentage raacsiisid dee waxay noqonaysaa by 2 1 by 250 boqolkoo laba loo qaybiyo waa konton halkaa iyo halkaa laisku jaray kontonna 5 ku dhufo waxay noqonaysaa 250% ها 250% برسنتku boqol waa ka badnaan kara 250% xabad kale number 2 aan raado hadaan ku iraahdo 3 whole number 1 over 8 hadaan ku iraahdo maxaa dhahaysaa 1 over 8 balday tan oo kale sidii oo kale fractionka mixed ka saar 8 times 3 24 plus 1 25 dusha sare waxay noqotay 25 hoosna waxay noqotay 8 markaas kadib waxaan ku dhufanaynaa 100% soo raacsiino 100% hadda ku dhufatid sida iyadoo ah maxay noqonaysaa 25 8 u qaybi basay u siinaysaa kan iska yar kan laba u qaybi laba meelood u qaybi waxa u qaybi saamay 4 meelood u qaybi wuxuu noqonayaa labo kan 4 meelood u qaybi wuxuu noqonayaa 5 iyo 20 miyaan ahayn 5 iyo 20 waayahay by 4 5 by 4 2 wax kaloo qaybsama ma arko mugta fraction waxaa soo geli doona jajab maxay noqonaysaa marka waa inaad labada 5 iyo 20 aad isku dhufataa aad tiraahdaa 5 ku dhufo ama 5 ka iska yareeyo iska qiyaas waxa 5 laba u qayb ama isku dhufo 5 ku dhufanaysaa waxaad u qaybinaysaa 100 5 dil u dhufto waa taqaaniin soo ma easy meesh bananka oo la baxaysa dad garan weyda xataa 25 labaad wadataa soo maaha labaad wadataa 12 haddana waxaad leedahay konton bay halkaas kale ku aadaysaa sidaan bay noqonaysaa 5 to 6 625 weeyaan 625 loo qaybiyey 2 625 loo qaybiyey 2 taasoo ah maxayna 300 312 iyo bar 300 iyo 12 iyo bar dhexdaart iyo bar 312 iyo bar percent weeyaan xoogaa bay nala dheeraatay tani sababtoo xoogaa way qaab darnayd marka hore 3 whole number 1 over 8 laakiin ama qaab darnaata ama qaab darnaanne waxaan samaynaynaa sidaasan yeelaynaa waxaan waxaan samaynaynaa ka saaraynaa mixidka kadibna boqolkaynu ku dhufanaynaa la dhowr xab ka shaqaynaa haye ku arko number 1 u bedel kuwaan alaabtan soo socota percent u bedel oo 2 over 12 أما 13 الله 2 over 13 هي number 2 5 over 18 number 3 9 whole number كانوا وين 9 whole number كده number يركب 2 whole number 1 over 2 and then now to a whole number 1 over 4 حتى هرا نصمرنا 1 over 4 number 4 3 whole number 1 over 5 وايه ansarada maxay noqonayaan ku deynaya casharka kale blowgiisa ayaan ku bilaabaynaa insha Allah shaqadooda ansaradooda taasoo ka bilaabaynaa halkaas aan kaga tagaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.